xubno kamida garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo qaar kamida xubnaha ururka haweenka Somaliland ee Now oo kulan wareed ku qabtay magaalada Burco ayaa sheegay inay ka baxeen xisbiga talada haya kulmiye iyo ururkaasi Now waxaana isla goobta kaga dhawaaqeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani فاطمة إسماعيل عبد الله أها هوانكي كلمية أها غوريغا غاشان أو سو دغرتي حسبيغا وداني أنيغو عقليغا يمانكايغا بقبا إيمي وداني اللي igu soo dhaweeyay gacmo furan qalbi furan niyad faraxsan anagoo ahayn haweenkii kulmiye ee guriga gaashaan u soo dugaranay xusbiga wadani lagu soo dhaweeyay gacmo furan iyo qalbi saafiya oo aan ku mahadiyo shukri naqayno waxaan ka cadeynaya inaan soo wareegay xusbiga wadani oo aan dhigay xilkii gudinimo ayaan halkan ka cadeynaya magacayga Suuriis Fali baa la yiraahdaa aniga kulmiye horeyso iyo dambaysa ahaa markuu mucaaradka ahaana mucaarad baan la ahaa markuu muxaafadka ahaana muxaafad baan la ahaa diigayga dhacaankayguba oo xididada iga raacay kulmiye oo baan idhi nabadeey kulmiye aan horeyso iyo dambaysa ahayn madaxii mijahaygu ka soo jeeday caaw halkan waxaan ka cadeynayaa oo alyaani hanbaliya uga daray xusbiga kulmiye inuu sida nagu daayo anigoo Caasho Xuseen Maxamed anigoo lafdhabartii kulmiye ahay waanu ka soo digarganay wadani baanu nahay isbedel baanu doonaynaa kulmiye wuxuu wadanka haystay 7 sano iyo bilu haystaa 7 sano iyo bilaha habluhu door kuma laha xisbiga kulmiye anigoo ka tirsan ururka Now waxaan igu kalifay inaan ka wareego dhibaatada iga soo gaadhay dawladda kulmiye dhamaantayo reer Xaj Xasan Geel hadaan nahay dhowrkii toddobaad aynu ka soo gudubnay waxa sare u sii kacayay taageerayaasha ku soo biiraya xisbiga mucaaradka wadani Ali Daar Maxamed Boos TV Universal Burco.